gobolada dalka Soomaaliyeed isaga carray dadyow Soomaaliyeed oo doonaya inay raadiyaan nolol dhaantatan ka jirta gudaha dalkan Soomaaliya ha yeeshee sanooyinkii ugu dambeeyay markii la helay ifafaalo dawlad Soomaaliyeed oo ka hanaqaada gudaha dalkan waxaa bilowday in dadkii ka carray gudaha dalka ay dib ugu soo laabtaan gudaha Soomaaliya si ay u raadiyaan noloshii ay awal hore ka carreen jubbooyinka waxay ka mid tahay meelaha iminka ay dib ugu laabanayaan dadkii ka carray burburkii dawladii dhexe ee dalka haddaba warbixintan soo socota wariyaheenna magaalada Kismaayo Mascuud Cabdullaahi Aadan ayaa waxa uu ku eegayaa mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa dib ugu soo laabtay ay deegaanada jubbooyinka ka heleen beerihii iyo guriyihii ay awal hore ka carareen kadib burburkii soo gaaray dalka Soomaaliya 1991 waxaa jira dad aad u fara badan oo iskugu jira Soomaali iyo ajnabi kuwaas oo iskaga baxay dalka Soomaali fara badan ayaa galay dalka dibadiisa waxaa sidoo kale jira dad lagu magacaabo Arab Soomaali kuwaas oo deganaa dalka Soomaaliya isla markaana ku lahaa hanti iyo maal aad u fara badan waxayna ka mid noqdeen dadkii ka barakacay dalka dhowrkii sano ee ugu dambeysay Soomaaliya oo nabadeedu ay soo hagaagaysay ayaa sababtay in qurba joog Soomaaliyeed oo dalka ka baxay 1991 iyo dad badan oo hanti iyo maal ku lahaa in ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya si mar kale ay u maalgashadaan beesha Arab Soomaali waa mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxay degaan degmooyin badan oo dalka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan magaalada Kismaayo Baraawe Muqdisho Hargeyso iyo magaalooyin kale Kismaayo hadda waxa ku sugan ugaaska beesha Arab Soomaali asoo kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka iyo dawlad goboleedka Jubbaland wuxuuna kala hadlay sidii beesha Arab Soomaali oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay uga mid noqon lahaayeen dawlad goboleedka Jubbaland isla markaana ay uga heli lahaayeen xaq ay ku leeyihiin in ay ka qayb qaataan siyaasadda iyo dibadhiska dalka wadanka waxaan joogaa muddo dheer waxaan soo galay 2013 ayaan imid magaratay dawladda Jubbaland aad ay noo soo dhaweysay wax kastone diyaarayna la ahayd annagana waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahaano mujtamaca ku nool Jubbaland nabadda aan ka faa'iideysano awal annagu waa ka maqneen meeshaan dawladda Jubbaland ina meeshaan ka maqanahay way ogeed oo waana la tabaayay waana la sugayay marka nimidna annaga wax dhibaato ah meeshaan kuma arkin waana la soo dhaweeyay dawladda Jubbaland aad bay noo soo dhaweysay oo madax ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam si fiican uu nagu soo dhaweeyay marka magaalada waxaan dareensanahay nin macnaha oo ka tagin inaan ahay oo waligiisa joogi jira oo marna ka tagin ka maqneen dawladda way og tahay inaan dad jiraan waligeena aan jiri jirnay magaaladan oo macna taariikh weyn ku leenahay magaaladan kaligeeda ma aha ee Jubbaland ma aha Soomaaliya dhan beesha Arab inay taariikh ku leedahay taariikh qoto dheer waa la og yahay marka waana la sugayaa sanadkan waxa way annaga waxaan rabnaa inaan gobolka Jubbaland inaan wax ka dhigno wax daro macnaha xildhibaanadeena wasiiradeena waxayna dhan inaan dawladda waana noo ogashay wax inuu diidan tahay male inaan soo dhacsano waxaan ku maqneen kaliya inaan ka soo qayb galno haddana qaybgalkeena waa loo jeedaa wuu muuqdaa aniga intaan joog hadda magaalada Kismaayo waa wax yar waa Oktoobartii hore ilaa hadda waxqabadkayga aniga inkastoo aniga inaan isfaali aan ahayn waa loo jeedaa waxqabadka beesha Carbeed ay qabteen waana soo socdaa aad bay soo socdaan hami weyn ayay u leeyihiin inay ku soo laabtaan wadankooda maadaama ay nabad fiican ka jirto oo xuquuqdoodana la siiyay annaga magaalada dadka oo yaqaaniin beesha Arab Soomaali oo si fiican u yaqaaniin markayna arkaan magaalada annagoo wadooyinka socono way nagu farxaan waxay leeyihiin Allah dadkii ka maqnaa ayaa wadankii ku soo laabtay nabadaba sideeda waxay ku fiican tahay in meesha macnaha qof kasto xuquuqdiisa la siiyo annagana markaan nimid hadda xuquuqdeena waa helnay oo guriyaheena waa helnay beeraheena waa nala soo celiyay ma gartay wixii yar maqanne waa soo noqonayaan laakiin waxaan ku sheegayaa annaga meeshaan waligeennaba kama aan maqnaanin haddaanna ka tagnay waa la xiriiri jirnay oo macna dada noo joogay oo la soo xiriiri jirnay wax oo dhan la socon jirnay dawladda bulshada Soomaaliyeed ee Jubbaland ku dhaqan waxaan ugu baaqi lahay nabadda oo Jubbaland jirto inay ka faa'iideystaan ma garatay nabad baa macnaha naas la maala leh ma garatay marka nabaddu annaga aad iyo aad ayaan u taabanay Mascuud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay mar hore in duqeyn dhanka cirka ah lala bartilmaameedsado xarumaha ciidamada oo ay ku sugan yihiin
ciidamada jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan ayaa goordhow war ka soo baxay Donald Trump waxa uu si rasmi ah ugu shaaciyay in uu ka laabtay go'aankaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa meelmariyay Khamiistii shalay oo ahayd in weerar lagu qaado jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan, balse Donald Trump ayaa dib uga laabtay go'aankaasi sida saraakiil ka tirsan Washington ay u sheegeen warbaahinta dalka Mareykanka. wargeyska lagu magacaabo New York Times oo soo xiganaya saraakiil military ah ayaa qoray in Donald Trump uu amray in la weeraro baraha kontaroolka ciidamada amniga dalka Iiraan, gaar ahaan goobaha ay yaalaan raadarada lagala socdo hawada iyo saldhigyada gantaalaha la dhigo. Trump ayaa amarkan lagu weerarayo Iiraan dib ugu laabtay, waxaana wargeyska Washington Post iyo warbaahinta lagu magacaabo ABC iyaguna tabiyeen qaar ku aadan qabarka ku aadan arrintaasi iyaga oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. warkan ayaa imaanaya saacado un kadib markii ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan ay soo rideen diyaarad nooca wax basaasta oo ay leeyihiin militariga dalka Mareykanka. maamulka Donald Trump ee Washington ayaa dhanka kale ka gaabsaday in uu ka warbixiyo arrinka soo riditaanka diyaaradaasi iyo in kale. warkii caalamka oo aad ka daawanayseen telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho, anaga intaa waxaa idiin waramayay anigoo ah Cumar Maxamed Soomane. tan iyo kulan dambe hadduu Ibraale ka noqdo intaan dib ugu kulmi doono war midkan ka xiiso badan, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.